kusoo dhawaada alcadaala aweys alcadaala official subscribe saar haddaad janaalkan ku cusub tahay subscribe saar si aad u hesho wixii macluumaad uu janaalkan uu ku hayo warar muhiim ayaa maanta idin haynaa janaalkan ku xirnow oo subscribe saar warar muhiim ayaa idin haynaa maanta wararka maanta idin hayno waxaa ka mid ah beesha caalamka oo Axmed Madoowe go'aan ka qaadatay qorshihi Axmed Madoowe oo fashilmay xog laga helayo laba sarkaal oo ka tirsan dagaalkii laba sarkaal oo isku haysta dagaalkii Dhuusmareeb ka dhacay kiiska Casho Ilyas oo weji kala yeeshay milqibtay inuu qabsaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo mowqifkiisa Somaliland bedelay sarkaal ka tirsan Nisa oo xabsiga laga dhigay kadib markii 4 qofood oo al-shabaab u sii daayay wararka fidsan ka daabo ka dhigayso wararka fidsan ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba oo joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya qodobada xiisaha badan ee aad daawan doontaan waxaa ka mid ah beesha caalamka oo go'aan xasaasi ah ka qaadatay doorashada Jubbaland iyo qorshihii Axmed Madoowe oo fashil ku dhow xog ku saabsan labada sarkaal ee isku haysta dagaalkii ka dhacay Dhuusmareeb iyo wararkii ugu dambeeyay kiiska Casho Ilyas oo weji kala yeeshay iyo nin si rasmi ah u qirtay inuu kursaday Saciid Deni oo bedelay mowqifkiisa Somaliland kuna dhawaaqay arrin aan laga filaynin sarkaal sare oo ka tirsan Nisa oo xabsiga la dhigay kadib markii uu sii daayay 4 qof oo shabaab ah loolan adag oo ka dhex qarxay Itoobiya iyo Somaliland iyo waxa salka uu ku hayo loolankaasi intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorka roon ee shabakada wararka maanta iminkana warkaasi oo faahfaahsan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa qoraal jawaab ah u diray gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland Xamse Cabdi Barre taas oo la xiriirta go'aanka guddiga uu ku dhawaaqay oo ay dib ugu furan isdiiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha isla markaana 3 maalmood dib ugu dhigan doorashada madaxweynaha Jubbaland tallaabada guddiga ayaa jawaab waxay u ahayd beesha caalamka saacadii wakiilka qaramada midoobay ayaa sheegay inuusan ku qancin tallaabooyinkaasi James Swan ayaa waxa uu warqadiisa Xamse in isbedelada guddigiisa uu sameeyay aysan weli si buuxdan aysan ugu buuxinin tallaabooyinkii beesha caalamka ay codsatay oo ahaa in la qaado si loogu kalsoonaado hannaanka doorashada Jubbaland warqadana 8 Agoosto aan ku soo dirnay aniga iyo wakiilada kale ee saaxiibada kale ee Soomaaliya u qaabilsan caalamka waxaan ku adkaynay muhiimadda hannaanka doorasho oo cad oo la isku raacsan yahay isla markaana la isku halayn karayo isla markaana la heli karayo taageerada dadka Jubbaland oo dhan taas oo horseedi karaysa midnimada Jubbaland dadka ku dhaqan ayaa u yiri James Swan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in haddii aan la qaadan tallaabooyinkaasi cusubta beesha caalamka aysan taageeri doonin natiijada hannaanka doorashada ee Jubbaland haddii aan wax laga qaban walaaciyada muhiimka ah ee qabaan dhinacyada ay khusayso arrintan waxaa jira halis ah in natiijada hannaanka doorashada uusan heli doonin taageerada buuxda ee lagama maarmaanka u ah in la joogteeyo xasiloonida iyo nabadda Jubbaland waa muhiim in hannaanka doorashada ay noqoto mid loo dhan yahay kuna dhacda jawi horseedi karaya horumar lagu sameeyo arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha ayuu yiri James Swan ayaa ugu baaqay Xamse inuu sameeyo isbeddello dheeri ah goor inta aysan dhicin doorashada si waafaqsan waxyaabihii aan ka wada hadalnay iyo kuwii aan warqadaha ku soo dirnay ayuu yiri James Swan Jubbaland waxaa shalay ka dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka iyadoo la doortay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaana la filayaa in dhawaan ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulkaasi ee 4 sano ee soo socota markana magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa xalay ka dhacay dagaal aan aad u badnayn kadib markii dagaal muddo socday uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda Galmudug ciidamada ayaa waxaa lagu waramayaa in dagaal uu ku dhex maray gudaha gaar ahaan xarunta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee Shirkole waxaana isku haystaan ciidii sugaysa ammaanka goobta lagu qabanayo shirka ciidamada xalay dagaalamay ayaa waxaa kala hogaaminaya taliyaha booliiska ee ka howlgala magaalada Dhuusmareeb oo magaciisa lagu sheegay Cabdiwahaab Sheekh Yuusuf kaasoo ay walaalayeen wasiirka amniga ee Galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf iyo ninka lagu magacaabo Cabdi Dheere oo ah taliyaha ciidamada nabad sugidda ee dhawaan dowladda deegaanka Dhuusmareeb si ay ula wareegaan amniga magaalada
shabakada wararka maanta ayaa ogaatay in xarunta lagu dagaalamay oo lagu magacaabo shir kale oo aad ugu dhow madaxtooyada uu ku shaqeeyo madaxa xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo hore ay u sugnaayeen ciidamada nabad sugidda oo ra'iisul wasaare Khayr uu ku wareejiyay inay sugaan ammaanka xarunta lagu qabanayo shirka kaas oo kolkii hore fadhigeedu u ahaa magaalada Cadaado. ciidamada booliiska ee magaalada Dhuusamareeb waxaa la sheegay in iyagu ay weerarkii qaadeen waxaana weli dhinacyada dagaalamay ee isku hor fadhiyaan sida la sheegay dhismaha loo diyaariyay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta. inkastoo xaaladda ay degan tahay haddana waxaa jirta feejignaan labada dhinaca. wasiirka ka tirsan maamulka Galmudug ayaa shabakada wararka maanta u xaqiijiyay in ciidamada dagaalamay ay soo fadhiyaan haatanna ay socoto oo waan lagu kala qaadaya maadaama la doonayo in la joojiyo xiisada ka taagan magaaladaasi Dhuusamareeb. markana Puntland maxkamadda sare ee Puntland ayaa shalay u fariisatay dhageysiga kiiska la xiriira kufsiga iyo dilkii loo geystay Caaisha Ilyas Aadan hase ahaatee arrintii ayaa weji kala yeelatay markii maxkamadda horteeda ninka qirtay inuu kufsigaasi geystay uu soo istaagay. Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame ayaa maxkamadda sare ee Puntland ka hor qirtay inuu qayb ka qaatay kufsiga Caaisha Ilyas hal marna uu u galmooday. sidoo kale waxa uu sheegay in falkaasi ay kula jireen nin kale oo ay weli gacanta aan lagu soo dhigin iyo mid maxkamadda lala geeyay. Maxamed Xareed oo ah xiriiryaha ku-xigeenka guud ee Puntland oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in qirashada Cabdifataax ay isbedel ay ku keentay kiiska Caaisha Ilyas Aadan. maanta waxaa kiiska ku soo kordhay in Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame oo ahaa xukuumadaha koowaad oo qiraal uu ku noqday inuu Caaisha u guursaday uuna tagay hal jeer. horey waxaa loo sameeyay baaritaano badan laakiin qofka bini'aadamka ah qalbigiisa waxaa ku jira gacanta loogama soo saari karayo. gacantana inta aan afkiisa gelin kama soo saari karno waxa ku jira. labadii maxkamadood ee hore waa uu inkirayay falka tanna qiraal buu ku ahaa ayuu yiri Maxamed Xareed. eedeysanaha saddexaad oo isna maxkamadda la horgeeyay ayaa waxa uu sheegay inuusan wax luga ku lahayn falkii lagu guursaday laguna dilay Caaisha. kiiska isugu jira falka kufsiga iyo dilka ah ee loo geystay Allahu naxariistay Caaisha Ilyas Aadan ayaa soo jiitamay ku dhawaad 6 bilood iyadoo dhageysiga maxkamadda sare uu ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa. Caaisha Ilyas Aadan oo 12 sano jir ahayd ayaa falka kufsiga iyo dilka lagu geystay magaalada Kalkacyo. markana madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wuxuu u muuqdaa inuu si lama filaan ah u bedelay siyaasadiisa ku wajahan Somaliland isagoo oo shalay sheegay kana hadlay xiisada kala dhaxaysa Somaliland ee ka taagan gobolada Sool iyo Sanaag. Deni ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in Somaliland ay xoog ku haysato deegaano ka tirsan Puntland hase ahaatee markii ugu horeysay wuxuu xusay in maamulka Puntland uu diyaar u yahay in wada hadal ay la gasho dhulka ka maqan ay kala hadlayso Somaliland. madaxweyne Deni ayaa sidoo kale waxa uu sheegay baaqayn Somaliland iyadoo arrintaasi ay ka gasho wada hadal midaas oo xal u noqon karaysa dagaalada labada dhinac inta badan ku dhexmarayay deegaanada ay ku muransan yihiin. madaxweynaha Puntland waxa uu yiri fariinta ugu horeysa waxaan u dirayaa Somaliland shaatigaaga waa lagu qabsan karaa dhulka Puntland ay ka soo xadgudubtay wada hadal iyo nabad inaan ku dhamayno oo aan ku garnaqsanno ayaan diyaar u nahay ayuu yiri madaxweynaha Puntland. hadalka Saciid ayaa wuxuu muuqday isbedel uu ku sameeyay xaaladda uu ku wajahayo Somaliland isagoo markii la doortay ballan ku qaaday inuu awood u soo celinayo dhulka ka maqan balse hadda uu muuqdo in uu xiisadii iyo hadaladii adkaa uu wax ka bedelay. madaxdii hore ee soo martay Puntland weli ma aysan sheegi jirin dhulka ka maqan Puntland ay wada hadal iyo gorgortan ay ka galayaan. ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa laba dagaal waxa uu ku dhexmaray deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool kadib markii ciidamada Somaliland ay qabsadeen magaalada Tukarraq 8 January sanadkii 2018. dagaaladaasi waxay ku geeriyooday boqolaal askari oo labada dhinac ah waxaana lagu kala qabsaday askar hub iyo gaadiid dagaal. xiisadda hadda waxay u muuqataa in madaxweynaha Puntland uu weji kale u yeelay haddii Somaliland ay ka jawaabto arrintan. markana xukuumadda Somaliland uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxay ku howlaneed sidii magaalada Wajaale oo ah marinka ganacsiyadeed ee muhiimadda u hirgelin lahayd goobo waaweyn oo ku yaala isla markaana ay kula loolamayso dhanka kale ee Wajaalada Itoobiya. gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland iyo maayirka degmada Gabiley ayaa kormeer waxay ku tageen magaalada ganacsiyeedka weyn ee Wajaale waxaana ay shaaciyeen in magaaladaasi ay ka hirgelin doonaan banki iyo xarumo kale oo muhiim ah isla markaana ay kula tartamayaan daanta kale ee isla Wajaale oo ka tirsan dhanka iyo Itoobiya. gudoomiyaha bankiga dhexe ayaa ugu horreyntii waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay inuu soo maray dhinaca Itoobiya ee magaalada Wajaale isagoo sheegay inuu ku arkay inay ka furan yihiin ilaa iyo 10 banki. marka la fiiriyana dhanka Somaliland aysan ka furnayn wax banki ah taasi oo sheegay in maalgelin ay ku sameyn doonaan oo ay kula tartami doonaan Itoobiya.
markii shaqada ay qabanayaan labadaasi baanankaasi Ethiopia ay arkayaan sida ay u camiran yihiin taatil mid la mid ah ayaan doonaynaa inaan halkan ka hirgelin ayuu yiri madaxweyne gudoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Maxamed Amiin Cumar Cabdi maayirka degmada Kabeelle ayaa isaguna warbaahinta isagoo la hadlay wuxuu yiri madaxda banka dhexe ee Somaliland aad ayaan ugu soo dhaweynaynaa socdaalka ay u yimaadeen gobolka oo ay ugu kuurgalayaan xaaladda bankiyada iyo xaaladda dhaqaale ee halkaan ay ka jirta waxaana muhiim ah inaan Ethiopia kula tartanno oo aan loolan kula galno ayuu yiri dhanka horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha Somaliland ayaa u muuqata in tallaabadan ay rabto inay kula loolanto magaalada ganacsiyeedka weyn ee Wajaale ee dowladda Ethiopia oo iyaduna dhankeeda kale uu ka muuqdo kobac iyo horumar dhaqaale oo aad u sarreeya markana militariga Soomaaliya ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa la sheegay inay xireen taliyihii ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya degmada Baardheere kadib markii lagu eedeeyay inuu sii daayay xubno ka tirsan Al-Shabaab mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Baardheere ayaa shabakada wararka maanta u sheegay in militariga Soomaaliya ka caroodeen in la sii daayay 4 nin oo Al-Shabaab ah oo ay militariga soo qabteen kuwaas kadib markii ay ku wareejiyeen taliska nabad sugidda ee degmadaasi militariga ayaa raggan qabtay kadib markii ay soo dhiibay mid ka mid ah oo la sheegay in loo soo diray inuu dil u ka geysto magaalada kadibna ay ku raadiyeen 3 kale waxaana la sheegay in 2 ka mid ah raggaasi la sii daayay dhowr bilood kadib markii ay xirnaayeen taliyaha nisa ee degmada Baardheere ayaa la sheegay in 2 ka mid ah ragga uu amray in la sii daayo halka 2 kalena ay ku jiraan gacanta dowladda waxaana arrintaasi ay sababtay in militariga Soomaaliya ku sugan degmada Baardheere oo awood ciidan leh xiraan taliyaha isla markaana ay sheegeen inay ku eedeynayaan fududeynta sii deynta raggaasi Al-Shabaabka ah warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in sargaalka la xiray qaraabo ay noqdeen labada Al-Shabaabka ah ee la sii daayay inkastoo aysan cadeyn u haynin shabakada wararka maanta mas'uuliyiin dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan degmadaasi ku sugan ayaa noo sheegay in warkan uu jiro balse aysan ka hadlin ilaa amar dambe ujeedada taliyaha nisa ee degmada Baardheere lagu wareejiyay shabaab ayaa ahayd inuu magaalada Muqdisho u geeyo ragga shabaabka ku eedeysan balse ma aysan dhicin militariga ayaana la wareegay labada ruux ee gacanta ku hayeen ciidamada isagana xabsiga la dhigay markana aqalka sare ayaa hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland iyo sidoo kale doorashada guddoonka baarlamaanka ee Jubbaland gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Bukhari ayaa sheegay in hambalyo u dirayo guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland waxaana hambalyadii bogaadin aan u dirayaa mudane Sheekh Cabdi Maxamed Cabdi Raxmaan oo ku guuleystay doorashadii gudoomiyenimada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare waad mahadsan tahay dad ku cusub tahay janaalkan subscribe saar waad mahadsantihiin dhageysi wacan